ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaanad kusoo dhawaataan mar kale iyo weliba barnaamijkeeni wargeysada amaba jaraa'idadu waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad kala socotaan telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan habeenkan caawaana daawadayaal xubnaha aan barnaamijka wargeysada kusoo qaadan doona ayaa waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaanyo oo jigjiga kaga qeybgalaya maalinta qoomiyadaha ee wadankaasi Itoobiya waxaa kaloon daawadayaal kusoo qaadan doona komishanka doorashooyinka oo cadeeyay in laga diiwaangelin la qaban doono xubnahaasi xubno kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal aan kusoo qaadan doonaa intaan ku guda jirno barnaamijkan wargeysadu waxay qoraan haddii aan daawadayaal soo qabta xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysadii habeenkan caawa ayaa waxaa wax ka qoray wargeyska geeska afrika isagoo ku qoray tirsigiisii maanta soo baxay oo ahaa 1874 wuxuuna ciwaan uga dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaanyo oo magaalada jigjiga kaga qeyb galaya maalinta qoomiyadaha wadankaasi Itoobiya daawadayaal haddaba wargeyska geeska afrika isagoo amuurtan eegaya ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaanyo iyo wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ayaa shalay booqasho rasmi ah ugu anbabaxay wadankaasi Itoobiya si uu uga qayb galo munaasabadda maalinta qoomiyadaha Itoobiya oo ka dhacaysa magaalada jigjiga maanta madaxweynaha somalilan waxaa safarkiisa oo qaadan doona muddo 2 cisho ah ku helinayay wasiiro ka tirsan xukuumadda waxaa duleedka degmada Wajaale ee xuduudka Itoobiya ku soo dhaweeyay madaxweynaha kilarka shanaad ee Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo u galbiyay dhinaca magaalada Jigjiga madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo waxaa ka sii horeeyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo martiqaad uu soo diray gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Itoobiya wargeyska ogaalna isna cadadkiisii maanta ayaa daawadayaal waxa uu kusoo qaatay komishanka doorashooyinka somalilan oo cadeeyay in laba diiwaangelin ah la qaban doono haddaba daawadayaal wargeyska ogaal oo amuurtaasi wax ka qoray ayaa waxa uu dhigay sida guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay wakhtiga loo asteeyay diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo weliba qaabka loo galayo islamarkaana waxay sheegeen in ay ku guuleysteen qadaraaska diiwaangelinta shirkad laga leeyahay Mareykanka guddigan oo shalay shir jaraa'id ku qabtay xarunta komishanka doorashooyinka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay afhayeenka komishanka doorashooyinka qaranka Axmed Xirsi Geele oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi labada doorasho ee la isa saaray tii madaxweynaha iyo taa baarlamaanka kolkaasi aanay dib ugu dhicin in ahamiyadda weyn la saaro oo la kala saaro labadii oo diiwaangelinta codbixinta gooni loo sameeyo tamadaniga ahna ay sii wadato wasaaradda arrimaha guduhu dabadeedna heshiis ayaanu kula saxeexanay bishii June 11keedii xafiiska wasiirka arrimaha gudaha arrintan lagu saxeexay oo aanu u gudbinay qaadaan bixiyayaasha ayuu yidhi afhayeenka komishanka qaranku Axmed Xirsi Geele waxaanu intaasi sii raaciyay hadalkiisii kadibna qaadaan bixiyayaashii waxay soo direen nin khabiir ah oo eega duruufta wadanka taalla iyo dadku waxay doonayaan ninkiibaana isagu eegay oo warbixin soo saaray haddana waxaa la qabtay shir ka madax bannaan wasaaradda dakhliga iyo komishankaba oo ay qabanqaabisay akademiyadda nabaddu si aan loo odhan buu yidhi ciday khuseynaysay ayaa ku kooban tahay amaba komishanka amaba dakhliga aanay ku koobnaanin oo wadatashi dadweynaha ayaa la sameeyey oo ay ka soo qayb galeen 3 qolo ee komishanka iyo wasaaradda dakhliga iyo asxaabta qaranka iyo bulshada rayidka ah iyo weliba NGO-yadu taasoo dhacday 25kii bishii Sebtembar oo aanu ku qabanay ayaa uu yidhi hoteelka Mansoor waxaana halkaasi lagu kala saxiixday oo la yidhi labada diiwaangelinood in la kala saaro oo laba laga kala dhigo aynu weydiisano qaadaan bixiyayaasha iyagu waxay jeclaayeen in aynu meel iskugu tagno oo waxay yidhaahdeen kharashkuba waa uu yaraan lahaa wixii waa ay yaraan lahaayeen haddana markay duruuftii eegeen ayaa ay arkeen inay isku gelaynin
dabadeedna markii aanu qaadhaanbixiyayaasha ka codsanay labadan diiwaangelinoodba waanu u baahannahay ayaa ay noo ogolaadeen inay naga caawiyaan labadan diiwaangelinood oo ay kala qabanayaan ayaa uu yidhi wasaaradda arrimaha gudaha oo qabanaysa ta madaniga ah iyo weliba komishanka oo isagu qabanaya ta diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa wargeyskan ogaal oo wax ka qoray amuurtani kusoo gabagabeeyey. layma ogola in aan isticmaalo telefoonka iphone-ka, sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah madaxweynayaasha adduunka ugu caansan. haddaba daawadayaal amuurtaasi waxaa boggiisa wararka caalamka ku qoray wargeyska yool waxaanuu dhigay sidan. madaxweynaha dalka maraykanka obama ayaa sheegay inuu mamnuuc ka yahay adeegsiga telefoonka gacanta ee loo yaqaano iphone kadib markii ay hay-adaha ammaanka ee dalkiisu isticmaalka telefoonkaasi ugu diideen sababo dhinaca ammaanka ah awgeed. madaxweyne obama oo la hadlayay xubno ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in aanu isticmaalin moobilkan iphone-ka kaasoo uu carabka ku dhuftay in arrimaha ammaanka ka sokow adeegsiga telefoonkaasi uu xataa caafimaadkiisu halis gelin karo. madaxweynuhu waxa uu sheegay in talo ahaan lagu soo jeediyey inuu qaato moobilka blackberry oo lagu tilmaamo inuu yahay midka xagga ammaanka aada ugu wanaagsan. badiba shaqaalaha aqalka cad ee maraykanka ayaa sida warbixintu sheegtay adeegsada isla moobilka blackberry. barack obama waxa uu sheegay inaanu jeclaysan labadiisa hablood ee zasha iyo maaliya in ay wakhti badan geliyaan adeegsiga telefoonka smartphone-ka amaba iphone-ka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa inta badan telefoonka ku hadlin marka laga tago inuu wakhtiyada qaarkood kula hadlo madaxda dalalka uu xidhiidhka la leeyahay. sirdoorka maraykanka ayaa dhowaan la ogaaday inay dhegaysteen telefoonada madaxda dalalka midooda yurub qaarkood waxaana ka mid ah madaxda telefoonada khaaska ah ee la dhegaystay ra-iisul wasaaraha dalka si jarmalka angelina markel. wargeyska hatufna boggiisa nasashada wargeyska ayaa daawadayaal waxa uu kusoo qaatay xubin aada u layaab badan oo u cajiib badan marka ay dad idinka mid ah ay maqlaan. xubintan ayaa daawadayaal waxay tahay hudheelkii ugu horreeyey ee lagu cuno amaba lagu iibiyo hilibka jiirka oo laga furay waddankaasi vietnam. haddaba daawadayaal xubintan oon u malaynayo inaad la yaabi doontaan waxaa wax ka qoray wargeyska hatuf isagoo amuurtaasi sii faaqidayana waxa uu yidhi. dalka Vietnam ayaa laga furay baar laga cuno jiirka ama dooliga taasi oo dad badan oo ku nool dalkaas ay soo dhaweeyeen. baarka oo laga furay caasimada dalka Vietnam ee Hanoi waxa soo buuxdhaafiyay dadweyne fara badan oo jecel hilibka jiirka sida lagu sheegay warbixin uu soo qoray wargeyska Daily Mail. cunista jiirka ayaa sanado badan laga taxadiri jiray wadamada ku yaala koonfurta Aasiya balse hadda si weyn ayaa loola qabsaday oo waa laga jecel yahay sida lagu sheegay warbixintani. waxa laga cunaa waqooyiga webiga Delta iyo koonfurta webiga Mekong. dadka ayaa si waalan cuna. sanadka waxa ku soo biiray ugaarsiga jiirka beeraleyda ku nool koonfurta kuwaas oo ugaarsada xayawaanada yaryar. halkii kiiloogaraam ee hilibka dooliga waxa uu ku qiimaysan yahay 100,000 oo dong ama 4 ilaa 5 dollar. xulka Brazil waa uu gaari karaa ciyaarta finaalka ee koobka adduunka amaba waxa uu qaadi karaa koobka adduunka, sidaasi waxaa yidhi ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa ee Pele. haddaba daawadayaal amuurtaasi mar kale waxaa boggiisa ciyaaraha ku qoray wargeyska yool. rugcadaaga dalka Brazil ee dhanka kubadda Pele ayaa u saadaaliyay qarankiisa ugu yaraan inay gaari karaan ciyaarta finaalka koobka adduunka kadib markii jimcihii la sameeyey isku aadka tartanka koobka adduunka. isku aadkii la sameeyey jimcihii ayaa xulkii waxay isku noqdeen oo ay isku beegmeen wadamada Croatia, Mexico, Cameroon iyagoo ku wada jira gruubka E. hase ahaatee Pele waxa uu ku kalsoon yahay in xulka ku guulaystay koobkii Confederation Cup-ku inay wacdaro ka dhigi doonaan isagoo u sheegay wariyaasha inuu filayo in xulka dalkiisu ay gaarayaan ciyaarta finaalka. waxaan mar walba xusuustaa aabbahay oo oynaya kadib markii aan ku guul daraysanay koobkii adduunka ee Uruguay ay qaaday sanadkii 1950kii. mana doonayo in ay caruurtayda arkaan anigoo oynaya. waxaan rajaynayaa in aan guulaysan doono. Pele oo 73 jir ah ayaa ka caawiyey Brazil 3 ka mid ah 5 jeer oo ay ku guulaysteen koobka adduunka, isagoo u dhaliyay 77 gool 29 kulan
oo uu saftay xulkiisaasi Brazil muddadii uu kubadda cagta ku guda jiray. taasna daawadayaal waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni wargeysada waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal barnaamijkii intaas ayaa uu nagaga idin yahay kamaradaas quruxda badan waxaa duubayay Cabdiraxiin Muuse Yuusuf Cabdiraxiin Kennedy waa habeyntii isku dubridkii soo saaridda anigoo Jamaal Axmed Naasir barnaamijkan mid lamid ah daawadayaal intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.